كما دام أي تهي بشهر رمضان بالإله سبحانه وتعالى كعبسي لقرته لفهمه لنا كسبه وحا واجب نقوه أما إنه كهبرناي إنه بشا كفاية سنو الموضوع يعني وينا إنه كسر جرني عبسده إنه كسر هذا النوم ما دام بشا رمضان أي شاكتي إن بشاس لكسبنا يو أما قفكو وهلا يو عبسده محي تاي عبسده سيدبي ما قرنس عن نقطة dadkii hore maxay ka yeeli jireen waxyaabahaas oo dhan waan ka soo hadalnay hadeerna waxaynu ka hadlanaa abbaab mowduuc aad iyo aad weyn oo ka sheekeynaya sidee baynu cabsi ku heli karnaa sabiil ila taqwa sidee baynu u gaadhi karnaa wadada cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala qodobo aad iyo aad u far badan ayay tiriyaan culimadu waxaynu ka soo qaadanay qodobo muhiim ah insha Allah ta'ala oo qodobadaas waxa la doonayaa qofku inuu raaco sidoo ugu sifeysnaado taqwo iyo inuu helo taqwo qodob koowaad waxa weeye dalabu taqwa min Allah subhanahu wa ta'ala marka hore in amar waliba aad ka dalabtid Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsida in Ilaahay subhanahu wa ta'ala min almuttaqin u ka dhigo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa Ilaahay ka cabsada uu kugu daro inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala amalkaaga uu aqbalo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaa isaga dadka taqwada iyo cabsida siiye inuu Ilaahay ku siiyo mahma kathura amaluk in si kasta u bato amalkaagu si kasta oo salaada u badisid oo soonka u badisid oo xajka u badisid oo quraan akhriska u badisid si kasta oo aad noqoto caabid waxa la doonayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala in Ilaahay ka baridid inuu ku siiyo cabsi ina aaminsanaatid Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu yahay ka bixin kara cabsi oo isagu siin kara laakiin amal kaliya inaan loo gaari karin Abdullah ibn Mas'ud nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka waranayaa inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu inuu dhihi jiray اللهم إني أسألك الهدى والتقوى إلهي وحنك ويديسنا يا هنون يعبسي والعفاف والقنا دور صونان أيانك ويديسنا يا وحنك لو ويديسنا يا إنا قني غيركتد وأنا كقني نقضه ما في أيدي الناس وحدتك أكتو دياله لكن أنا كقني نقن إلهي سبحانه وتعالى وحا أكتو دياله مركانا وحويت nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo nabi ah oo la hanuuniyay oo la siiyay kitaab oo lagu soo dejiyay kitaabka oo lagu soo dejiyay diintii iyo waxyigi oo malakul jibriil uu iimanayo hadana wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baraya hanuunka iyo magarnaysa al-istimraaru ala al-huda inuu hanuunka ku sii socdo maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanuun wuu siiyay oo de niintii uu ku soo dejiyay laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka sii barayaa oo kale in hanuunkan iyo cifaafka iyo qaninimada iyo waxyaabahaas uu sii daa'imo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u sii kordhiyo markaana waxa dhahaa culimadu waxay dhahan aayadaha ka sheekeynaya dadka Ilaahay ka baqa nabiga sallallahu alayhi wasallam dariiqa raac aayadaha ka sheekeynaya ayadahaas oo ay leeyihiin ya ayyuhalladheena aamanu taqullaha ya ayyuhan nabiyyu taqillaha nabi Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baq dadka muuminiinta ayo Ilaahay ka baq macnaha waxa laga wadaa istamiru ala taqwallahi subhanahu wa ta'ala aw diimu waxa weeye ku socda ama ku toosnaada ama si wada oo hakale xanina oo daa'ima Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa markaana waxa la doonayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala la weydiisto cabsi inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyo inuu kuwa min almuttaqin ta ka dhigo istishcaar muraqabati Ilaahay subhanahu wa ta'ala ala dawam qodobka labaad ee ku helaysid cabsida waxa weeye in aad dareentid in Ilaahay subhanahu wa ta'ala markastaba uu gaar ka hayo oo ku ilaalinayo oo raqiib yahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amalkaaga markastaba uu eegayo in aad magaranaysa suureysatid oo aad dareentid
sababtoo ah haddii aad sidaas samaysid dee qof waxaa tahay markastaba ilaahay ka baqaya darajadaana waa gaari kartaa darajadaas waa gaari kartaa maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kuma amrayaan kugumana waaninayaan iyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaa waxaad awoodid ma ahane markaana weligaa waxaa u fiirsataa ama weligaa waxaad egtaa darajooyinkan iyo ma garanaysaa waxyaalahan laga sheekeynayo qofku waxa weeye waa darajo uu gaari karo inuu ka xaqiijiyo la khayra fi man la yuraqibu rabbahu khayr uma sugna qof aanan iska ilaalinayn ilaahay subxaanahu wa tacaala عند الهوى ويخافه إيمانا عند الهوى مركا أي هودو إيو نفتو أي وح أشكتو وح خلدان مركا أشكتو مركزتا ونفتادو أي دريق حنكوت المامتو هدي آذن إلهي سبحانه وتعالى صحة الصنين وآذن أهل إلهي سبحانه وتعالى أياكو إلى خير ملهد ويخافه إيمانا إلهي سبحانه وتعالى نكبقيا إيمانا متلبسا بالإيمان إسوغو كل أهن إيمان معناها هدي عن الله سبحانه وتعالى كبقين أديكو مع إيمان أو إيمان كدهن أو إيمانكو وحكاريبيو وحناكو أمريو أديكو هدي عن إنت سمعين وإله سبحانه وتعالى إسكائلانين معناها خير مليد أيوه كليه يعني إصلاح النية قلب قصة هذا حوي ونية هذا إنها كاجسد النية أو الأولى إن شاء الله تعالى وينوصل السعودان باب وين والإخلاص أن كيش كانوا ويسنا حلقين فربضان له إن النية والإخلاص يسيدا لو قال لها إخلاص وين يسيدا إلهي سبحانه وتعالى عملك أسمين وباقي قلنا صوبته عملك إلهي سبحانه وتعالى أسمي سدلاتي باقي بو نقنيا ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقضع وانفصل إن وحي إلهي سبحانه وتعالى درادي لو سميو وي دائما أو وي جيران أو وحلير سمان هذه أمانة الصونتا إيو صلاة ليلك وإلهي سبحانه وتعالى درادي أسمي سيد مركز طبع وحسمينا سوا وكد ذلك لكن هذه إلهي سبحانه وتعالى درادي أسمي ويديد انفصل وانقضع وحس ويقعيان وينا kala tagtagayaan waxaas u sameysay istusnimo iyo in dadka ay isku dustid iyo in la dhawaale hebel uu sameeyay hebel salaatool iyo qiyaameel buu tukanay hebel waxaasu ma sii jirayaan hadii aad aragtid qof bisha Ramadaan dhameystay hadhowtana insha Allah ta'ala wanaagiisi iyo ma garanaysaa cibaadadiisi ku sii socda ama qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan caabudaya hada aragtid waa qof macnaha ikhlaas وكبحو وإلهي سبحانه وتعالى دراتي وسمينيا مركا إصلاح النية إن نيته هذا هجاجسد وقضب كهلسد عبسد إلهي سبحانه وتعالى عن عون عبد الله حكولي هاي عن عون ابن عبد الله فواتح التقوى حسن النية فواتح ذا وحيالها فرع عبسد وحاكم ذا نيده أو نكسن هدي نيته هذا ونكسن نيته هذا wax wanaagsan ka dhigatid niyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala amalka u sameeyaysid waxa gashay abwaabti khayrka ayaa gashay abwaabti khayrka ayaa dhex gashay waa ina markaana ku sii socotaa asida imta qodobka afraad waxa way al-iimaan billahi wa bil qada'i khayrihi wa sharrihi ina Ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaan rumaysid oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaan la timaadid إن وحي إلهي سبحانه وتعالى وكوقري خير يشرب هذا يعني إن الرميسيد وهذا إن إلهي وحم هاي وقرتي إلهي وحن صوبتها مركزته مصيبين ابتلاء امتحان وقرأ هذا تنا كقول سيد هذيك الدرجة هذا أيكون نساء إلهي سبحانه وتعالى فضائل وين بقارسين يا وحلقة يا بقوة وقافة لبضن وعملي علمي كعبداً إن الله سبحانه وتعالى حقا كسي قرسيو ومقارنة ساقوة كلو أتكون أكسنت هنا إن الله سبحانه وتعالى حقا وحبداً كاسرسيو ما دام أي سيدات هاي الله سبحانه وتعالى امتحانك وحوكينيا إن أمداً وكو كلا سرسيو وكو كلا صفيو مركانا إنا آمنتيد وحي خير يا وحي شر الله سبحانه وتعالى
inuu magaranaysaa ka yimi oo sida khayrka iyo wanaagga iyo nicmooyinka lagu siiyo aad ugu farxaso sidaas oo kale waa inaa ugu farxdaa wixii dhibaataa waa inaa ugu samirtaa waa inaa u adkaysataa oo waa inaa u aragtaa dhibaatadan in maxwi sayi'aat min nafsik in laga taatirayo sayi'ooyin iyo xumaan gashay adigu inay tahay. Cadaa ibn Abi Rabax qaala sa'altu Waliid ibn Ubaada ibn Saamit waxaan weydiiyey Cadaa ibn Abi Rabax ayaa wuxuu yiri waxaan weydiiyey Waliid ayaan weydiiyey sidee bay ahayd aabaha markuu ka dhimanayay wasiyadii uu ku siiyey wasiyadii dardaarankii uu ku siiyey sidee bay ahayd oo dardaaranku waa shay magaranaysaa lagama maarmaan ah oo sunna oo qofku waxa la doonayaa inuu la yimaado markuu dhimanayo iyo markuu nool yahayba inuu dardaarankiisa si qorto in magaranaysaa uu wuxuu dardaarmayo iyo wixii deen lagu leeyahay iyo noloshiisaba inuu dardaarankiisa si qorto si qofkaasu magaranaysaa uu niyadiisa uga buuxiyo in uu مسافر إلى الله سبحانه وتعالى وراجع إليه إنه إله سبحانه وتعالى ونقنيه وقفكن إله سبحانه وتعالى إنه آذيه مركانا حلقة أودك الصومالي دا ما أنت هذه مقرنسا أو كتير قفكي يو سيدي منايا أما قفكي يو حنونكي لما شذا غيري دا وهايو إلا 10 دقيقة ونولي هاي هدر لكيسة إلا وقت حوغا وغا هرسنتها دمشقة هدي أكو جرايد دارن بكا قرية ودمنسا وحالغا يابا إهلكيسي إني كو لهان محل نوغا هوارسا محاد ليدهاي وحاسداتاي وحساساتاي إني كو لهان بالغا يابا لكيسة واسي شي سناوي قفكن مركو سي دمنايو وإن مركي لفهمو إن قفكن ودمنايو وإن لغا قرا دردارن وحبا أن ليسكو ريرين مقارنة وحيابها قلق أما هكذا يسقوا دمانيا لكن دارن كوا شيء مهمة حكولي هاي مركي دمشقوا أتمي أياو إيرا حكولي يا بني أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى مركو روحان كوت الدار مياه عبسيد إلهي سبحانه وتعالى وعلم حجر أغو أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله إلهي سبحانه وتعالى كما بقصد إلهي الرميسو مهاني هذا دون سينا إلهي سبحانه وتعالى كبقدد إلهي رمي واعلم أنك لن تؤمن بالله أقول أن إلهي سبحانه وتعالى من رمينسد ولن تدعم دعم حقيقة الإيمان من لدمينسد لدنك حقيقة إيمانك معانكيسا يميلها أقصر سريسا ما قارسد ولن تبلغ العلم علمك ما قارسد حتى تؤمن بالقدر خيره وشره كله حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره إلا أترميسو قدرك لما أنتيس خير كيسا يشر كيسا تاسنا وحكاكا في نسا إن هذا وحيالك لكم مشغولين وهذا عملكم مشغوشين سيدة با سيفوين حنبا وقفكم مكرنا سا سيفوينكم حنورن ما لا يعني وحافي عن قفك إنه يسكدايو إنه قفك بارو محيله وحا وسمي قدركم محوها ونعم من ناحية الأخرى كيك وعملك هدي لقو امتحامه وحاتر هذا وعملك حماء سميسي أيا لغا جريا إيا مقرنا سا مسائبتي يدبوينكي يدنوبتي سميسي أيا وحان كوكيني سيدا له سيدي سلف كودي جرين لكن حكو مشغولين وحي وهالإهن إلهي محو وحي وسميانا يا سياس محا ميا موتا وحي حكو مشغولين وحا لغو مشغولو عمل وناكسن أيا أغو خير بدن وعملك أغو مشغول أضو امتحاما ومسائبتي كودل سعتو قرآن كيسك أخرسو وسلاديتكو وصون وعلمي برو وإلهي سبحانه وتعالى مالين ديلي يكلافين إلا أد علمي سياسة مهاني سيدي دي جرين دادكي هوري هدينا وحي دي جرين هدينا مالينتي هدينا وح علمي سياسة مالينتي مقرنسا مالينتاس عنيقا لا يمحساويو أي دي جرين مركانا مالينتاس أدوكو حكو مشغوشا علمي يكو مشغول وبالصبر على القضاء والقدر يصل الإنسان إلى تقوى سياسة كلا وإنا كسمرتا قضاء يقدر كإلهي سبحانه وتعالى
kuu qoray haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku imtixaamo oo masaa'ib uu kuu qoro ku samir oo nin raga iska dhig ra'su taqwa as-sabru maxaa yeelay cabsida meesha ugu sareysa waa inaad iska samirtid wixii ilaahay kuu qoray oo dhibaata oo masaa'iba marka qodobka afraad waxa weeye in magaranaysa rumaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisa iyo wuxuu ku qoray waxa weeye qodobka afraad ee qofku cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku helayo qodobka shanaad waxa weeye muhaasabatu nafsi inuu nafta xisaabiyo oo naftiisa xisaabiyo عن ميمون بن مهران وحكوليه لا يكون الرجل من المتقين نينكا رجع كما من نقنيو دتك متقين تا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكي إلا حسابيو إن كبدن إلا نفتيس حسابية إن كبدن إنتو حسابيو قفك شريكة بيعة إيو صفقة كلاه حتى يعلم من أين مدعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه أم من حلال أم من حرام إلى أوكو قالوا حقيبو وحكا عني حقيبو وحكا عبي حقيبو وحكا لبستي ما حرام با ما حلال با وحاصلا مركان شيء خاصي بحكوليه هي وإنها نفط هذا حسابي سا سيدا حسابين سيدا قفك شريك كلتهاي في شيء من الأمور وفي شيء من البيوع qofka ma garanaysaa aad tusaalahaan wax wada leedihiin oo badeecayn ka dhaxayso wax iibsi ama waxyaabo kale aad isku darsateen qofkaas sida uu la xisaabtantid oo ay ku tiraahdo qofkaas adigu intaas leedahay ana intaas leedahay intaas ayna soo galay saas u qaybsanana sida indhaha ugu eegisid qofkaas wax ku haya in waxan ma garanaysaa uu waxaagii yahay oo ugu la xisaabtamid saas oo kale naftaada oo la xisaabtam oo waxyaalaha ay cunto ay cabto ay gashan tahay libaaska ay gashan tahay xitaa waa inay isweydiisaa xageeban kan shaarkan xageeban keenay meel hebla garmadan aan gashanahay meel hebla xalay waxaan cunay xageeban keenay xalaal bahaayeen mise xaraam bahaayeen waxaan magaranaysaa isticmaalay waxaan haysto waa inaad baaldhaa wax kasto agtaada yaala ma xalaal ba mise waa xaraan laakiin haddii wada xaraan yihiin oo hadhowtana aad magaranaysaa wixii aad eegin garanaysa hada waxay noqonaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogtahay aadan ka cabsan markaana cabsida waxay ku tusinaysaa maxaa yeelay qofkanu markuu sidaa leeyahay cabsi buu gaadhayaa cabsidu sideedaba ma garanaysaa waa gaadhitaan oo qofku waa inuu shaqaystaa oo fikirkan aad fakaraysid waxan ma xalaal ba waxan ma xaraan ba waxaas oo dhan ilaahay khair iyo ajar buu kugu siinayaa sababtoo waxa doonaysaa inaad cabsi gaadhid waxa doonaysaa inaad iska eegtid wixii agtaada yaalay aslu taqwa muhaasabatu nafsi cabsida asalkeedu waxay